ودوهي aad baad u mahadsan tahay Minnesota waxaan imid muddo 2 cisho laga joogo waxaan Mareykanka imid toddobaadkiina dhaafay anigoo u imid ururkan ummadaha midoobay shirweynihiisa waftigii dalka Kenya ka mid ahaa markii shirkaasi uu noo dhamaadayna waxaan gartay in aan booqasho salaan mahadnaq iyo warbixin soo mara jaaliyadda Soomaaliyeed ee Minneapolis degan jaaliyadaasoo muddo dheer ila socotay markaan doorashada galayna aad iyo aad ii gacan qabatay marka Minneapolis waxay ii tahay magaaladeedii labaad haddii laga soo tago Nairobi arinta ugu muhiimsan aadna aan ugu faraxsanahay hawlaha aan qabtay waxa kamid ah inaan dib u soo celiyay cadaaladda iyo xuquuqda shacabka Soomaaliyeed isli ku nool sharaftoodina aan sare u soo qaadnay intii ka horeysay doorashadayda dadka Soomaaliyeed xuquuqdooda waa lagu tuman jiray lama ilaalin jirin wax u hadla oo laga baqa la dhageysta ama la maqlana ma jirin wixii doorashadeeda ka dambeeyay aad iyo aad baan u xoojinay sidii loo ilaalin lahaa xuquuqda dadkaasi tan labaad ka muuqata xaafadda meel aad u burbursan bay ahayd jidadkeedu ay baaba'san yihiin qashin iyo qurun fara badan oo ku soo shubmayo tilaabadii ugu horeysay ka qaadnay waxa weeyaan in dib loo dhisay jidadka qaarkood jidka ugu weyn xaafadda aad buu iminka u dhow yahay dhismihiisi labada jid ee kale ee muhiimka ahna in gacanta lagu hayo marka dhismihii xaafadda way soo hagaagayaan dhismahoodii jidadkii baa soo muuqda waxaan rajaynayaa inta doorashada aanay dhicin jidadka qaarkood in la dhameystiro tan saddexaad waxa weeyaan magaaladu xaafadda isli xagga nalka oo kale nal ma lahayn habeenkii mugdi bay ahayd tuugada iyo burcadnimada ku badneed xaafadda nalkeedii baan gelino iminka way shidan tahay dadku habeenkii bay socdaan oo ay shaqaystaan madaxweynaha cusub Xasan Sheekh Maxamuud waan isnaqaanaa waa nin aqoonyahan Soomaaliyeed waa nin dalka Soomaaliya muddo badan ka soo shaqeeyay horumarkeeda iyo dhismaheeda nabadgelyada iyo nabadda Soomaaliyeedna muddo ku soo jiray marka anagu haddaan reer Kenya nahay aad baan ugu faraxsanahay doorashadiisa waa doorashadii ugu horeysay ee ka dhacda dalka Soomaaliyeed gudaheeda taana waa tilaabo aad iyo aad aan u soo dhaweynay ku faraxsanahay waxaanan rajaynayaa in dadka Soomaaliyeed ay taageero buuxda siiyaan dawladaha shisheeyaha iyo ururada caalamiga inay gacan siiyaan sifaha hawshaasi iyo mas'uuliyadaas culus ee la siiyay uu ku guuleysto anigu ma filanayo taasi inay wax ka jiraan taasi waa sheekada suuqa maqaayadaha lagu sheekaysto in khilaaf uu ka jiro ama dhibaato ay ka jirto laakiin se dadka jubooyinka ku nool ee Soomaaliyeed waxa u fiicneed sida tartiibka ah ee ciidamada Kenya ay u galeen haddii ay ku degdegi lahaayeen waxa laga yaabaa dhaawac fara badan inuu soo gaari lahaa shacabka iyo magaalooyinka waaweyn oo Kismaayo ka mid tahay marka sanad bay ku qaadatay ciidamada Kenya inay galaan markii dambena waad la socotaa Kenya ciidamadeeda inay iska bedeleen in ciidamo hal wadan ka socda ay noqdaan oo ay noqdeen ciidamo ka tirsan AMISOM xukunkana uu hoos yimid AMISOM marka anigu sida aan u arko ciidamada Kenya hawshooda sida ay u qabsadeen iyo sida dagaalkaas ay u galeen ma xumaan runtii dhaawac sida u weyn ma gaarsiin xagga xuquuqda bini'aadanka iyo burbur sidaas u weyn ma soo gaarin dagaalku moogtahay uu dhib badan yahay dad baa ku dhinta xoolaha ku baaba'a marka waxaan rajaynayaa ciidamada Kenya inay sida ay hawshooda u sii wataan ilaa iyo marka ay ciidamada Soomaaliyeed xoogaysan doonaan oo la oran doono hawsha aad qabateen waad ku mahadsantihiin dalkiina ku noqda
warkaasi anigu waan maqlay laakiin sidaan ogsoonahay maadaama aan ahay xildhibaan ka tirsan dalka Kenya waxaan ogsoonahay dawladda Kenya shacabka Kenya iyo dadka Soomaaliyeed ee Kenya degan inay aqoonsan yihiin xuduudada caalamiga ee Soomaaliya iyo Kenya ka dhaxeeya inabana anagu raali kama nihin xuduud cusub oo iminka la sameystay ama shirqool cusub oo dad Kenya ha ka mid ahaadeen Soomaaliya ha ka mid ahaadeen ay galeen waxaan ogsoonahay warkaasi inuu yahay war suuqa ku jira laakiin se wax ka jira inaba ha yaraatee ama se anagu aan ka ogolnahay ma jiraan Kenya waxay aqoonsan tahay xuduudada caalamiga ee Soomaaliya waxaanay u hoggaamsamaysaa ilaalinta xuduudda labada dal ka dhaxeeya ee caalamiga ee la aqoonsan yahay dadkaasi ma fara badna sidaad sheegaysid ma badna dad aad u yar baa la qabtay meelo badan buu qaraxyo ay Kenya gudaheeda ka dhaceen dadka la qabtay shanteeda farood baad ku tirin kartaa intooda badanna markiiba maxkamad baa la keenay maxkamadaha Kenya way madax bannaan yihiin annaguna aad iyo aad baan ugu dadaalnay inaan dambi geysan oo aanan waxba geysan in la qabto marka run ahaantii dagaalka ka jira dhaawaca ka soo gaaray Kenya iyo shacabka Soomaaliyeed hadaad eegto dadka la qabtay aad iyo aad bay u yar yihiin kamana shaki qabo anigu dadkaas in lagu xadgudbi doono waxa ka badan dadka loo qabtay nimankan badda maraakibta ka qabta maxaa la yiraahdaa burcad badeedka ka badan dadka al-shabaab ahaan ama argagixis ahaan loo qabtay sababtana waxa weeyaan waxaan u malaynayaa in aqoonta dadka ay u leeyihiin nimankaasi burcadka inay yar yihiin meelaha la isaga hor yimidna inay aad iyo aad u yar yihiin qofna lama qabo dhowr xildhibaan oo Soomaaliyeed baa raacay Sheekh Shariif markii ugu horeysa aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa hawsha Soomaaliya uu ka qabtay intuu madaxweynaha iyo sida quruxda badan ee sharafta leh ee isaga dhiibay maamulka dalka iyo taageerada buuxda ee uu u gudbiyay madaxweynaha cusub sharaf buu ka mutaa dadka Soomaaliyeed sharaf iyo mahadnaq buu ka mutaa dalka dariska ah marka xildhibaanada Soomaaliyeed ee ninkaasi la socday waxa ay sheegeen in asagoo naxsan tacsiyad ahaan ugu yimid hotelkay ku jireen ee lagu weeraray raali gelinna ugu yimid taageerana ugu yimid marka ninkan wasiirka arrimaha dibadda Kenya warkan uu sheegay waa war aan aad uga naxnay oo fool xun una aqalmin nin madaxa inuu sheego hata haday jirtay marka aad baa loo cambaareeyay markii dambena intuu shir jaraa'id u yeeray ayuu sheegay inuu raali yahay si khaladna loo fahmay erayada uu wariyaasha u sheegay marka runtii war aad iyo aad u fool xun buu ahaa